السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمان أصحابتك حرن جيرانka aqoon wadaag fiidiyogan maanta waxaan ku sharxi doonaa laba qodob qodob kuwaad wuxuu yahay sida loo sameeysan lahaa new folder sida u sameeysan lahayd qaanado cusub qodobka labaadna waxa waaye sida ugu bedeli lahayd iconka muuqaalka kore ee folderkaasi waxaan isticmaali doonaa shortcut taasoo inoo fududeynayso inaan sameeysano qaanado cusub ama folder cusub waxaan taawaneynaa tusaalahan desktop anagoo sidaan u taagan waxaan sameyn karnaa folder inaan sidaan u sameyno right click inaan taawano kadib aan sii taawano new folder taasi waa wada dheer new folder kadib folderkii magaca u baxsanaysaa taasi anagoo ka gudbeyno waxaan taawaneynaa bis anagoo isticmaalina shortcut control shift n markaan taawano isla markii waxaa ujeedaa in folderkii inoo sameysmay kadib folderkii magaca ka bedelnay maraan ku celino waxaan taawanay control shift n isla markii folderkii waa kana waa inoo sameysmay folderkii magacaan ka bedeleynaa magaca aragtisa waa qoran kartaa tusaalahan waxaan isaga qoranaynaa lessons ama lesson ayaan qoranaynaa sidaas enter kadib magacii sidaas ugu bedeshay folderkii qodobka labaad wuxuu yahay si aad ugu bedesho iconkan oo jaalaha waa ka bedeli kartaa sidaan folderka markuu yahay folderkii right click taabo kadib waxaad taawanaysaa property markaad taawato waxaa qaybtan waxaa ka tagaysaa customize markaad tagto qaybta hoose oo ah change iconka meesha ku dhufanaysaa meeshaan waxaa ku jiro icon aad u fara badan aad ka dhigan karto folderkaaga muuqaalkiisa kore sidaas darteed anaga waxaan dooranaa su'aalan geedkan oo kale aan dooranaa geedka taawanay kadib hoos waxaa ka dooranaysaa okay marka okay saas si taawato okaydan kala taawanay iconka uu isbedelay ujeedaan kuwii hore wuxuu ahaa sidaan oo kale ahaa hadan sidaan uu noqday sidaan uu soo celin karnaa si uu soo celinaa marka isla sidii right click taawanay right click marka taawato properties taawanaysaa kadib waxaa si taawanaysaa customize marka taawato change icon taawanay kadib iconkii aragtida waa kana oo midkaan ahaa waa taawanay kadib okay siisa ku soo laabanaa marka meesha ayaan ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.